Filimkeen wuxuu ku bilaabanayaa oday da' ah kaasoo u socda Marwo si uu u soo akhriyo buug. Kabacdi wuxuu u imaanayaa marwadana waxa ay ku dhahaysaa hadda diyaar ma u ihi inaa wax la ii akhriyo. Ugu dambeyn wuu ku qalqaalinayaa. Xalqadeen kale waxaa arkaynaa Tooraheena iyo saaxiibkiisa. Tooreen magaciisa waxaa lagu magacaabaa Nova. Tirishadeen sidoo kale waxaa la dhahaa Aalaa. Ugu aragtida koowaad Tooraha wuxuu ka helayaa tirishada wuxuuna ka codsanayaa inay isla ciyaaraan. Ugu dambeyn iyadana ay ka diidaysaa, laakiin saas uguma harayo. Iyadoo saaran wiifowga ayuu u soo korayaa wuxuuna ka codsanayaa inay israacaan. Haddaad diidin inta iska tuura uu dhahay. Ugu dambeyn way ka ogolaanaysaa inay israacaan. Maalinkii xigay wuxuu ka arkayaa si lama filaan ah Aalaa wadada iyadoo taagan wuu soo xasuusinayaa. Ugu dambeyn habeenkii ayaa la gaaraa waxayna isku raacayaan Shaneemo sida u balanta ahayd. Filim ay isla soo daawanayaan. Ugu dambeyn waxayna go'aan gaarayaan inay soo socod aadaan. Tooraha iyo saaxiibkiisa iyo tirishada saaxiibteena si gooni isku raacayaan. Tooraha iyo tirishada soo socday aadayaan waxayna iskaga sheekeynayaan noloshooda. Tirishada waxay ogaanayaan inay u imaatay dalxiis ayna laaban doonto magaalo kale ay ka imaatay. Wada sheekaysi iyo isfahan dheer kadib waxaa bilaabanaysa midba midka kale inuu ka soo helo. Waxayna go'aan ku gaarayaan inay jacayl samaystaan. Maalinkii xigay waxaa arkaynaa tirishada iyo Tooraha oo si dheer isku fahmay, dalxiis isku soo raacay, babaashaal. Habeenkii dambe waxay imaanaysaa Tooraha gurigiisa waxaana isbaranayaa Tooraha aabihiisa. Waa isla casheynayaa, waa la isbaranayaa, baashaal, qosol dheer. Kabacdi maalinkii xigtay waxay isku soo raacayaan dalxiis wayna soo babaashaalayaan. Habeenkii waxayna dheelayaan ciyaar dhaqameedyo ay iyaga leeyihiin wuxuuna u soo kaxaynayaa gurigeeda. Laakiin waxaa arkaya aabaheed iyadoo la socota nin. Ugu dambeyn waxaa la lahaa ii keen guriga, laakiin ma kama helayo maadaama uu ahaa wiil faqiir ah. Tirishada wuxuu u soo wadayaa magaalada banaankeeda wuxuuna u ballan qaadayaa gurigaas inuu dhisi doono ay ku wada noolaan doonaan si wadajir ah. Tirishada waalidiinteed way waanayaan, ciidamada ayay wacayaan waxay u dhahaan gabadhii ha noola soo raadiyay, laakiin Tooraha saaxiibkiisa ogaanaya wuu keenaa guriga. Isla habeenkaas tirishada Tooraha way isdagaalayaan. Subaxii dambe tirishada wuxuu kusoo kicisaa guriga oo la baxaayo waxaana la dhahaa magaaladeena u laabanayna. Iyadana waxay imaanaysaa Tooraha saaxiibkiisa waxayna u sheegaysaa Tooraha inuu iska cafiyo sida xalay ula dhaqantay. Magaaladii ayay sidii u soo tagayaan. Tooraha ayaa imaanaya waa loo sheegaa, laakiinse guriga u imaanaya iyadoo bixin. Hal sano warqado u qoraa ma loogu soo jawaabin wuxuuna go'aan gaaray inuu bilaabo nolol cusub. Hal sano kabacdi waxa uu maqlayaa maalin askar ayaa loo qaadanayaa si ay wadanka u difaacaan. Wuu iska qorayaa waxayna galayaan maalin si lama filaan ah dagaal waxaana meesha ku dhimanaya Faan oo ah Tooraha saaxiibkiisa. Tirishadana waxay noqonaysaa neersin 2 sano kabacdi waxayna caawinaysaa dadka. Maalin iyadoo sii socda oo ka imaanay meesha oo shaqaalaha ka tahay waxay arkaysaa wiilkaasoo ah taajir oo magaalada taajirka ah wuxuuna u sheeganayaa jacayl wayna ka aqbalaysaa. Ugu dambeyn xaflad dhexdeeda ayuu guur ugu bandhiganayaa iyadana way ka ogolaanaysaa. Maalinkii xigay waxaa dib u soo laabanayaa Tooraheena. Aabihiis isaga waxbay siinayaan ismarxabeyn dheer kadib aabihiis wuxuu u sheegayaa Tooraha in gurigii ay gadeen. Tooraha wuxuu iska soo aadayaa magaalada. Maalin si lama filaan ah isagoo saaran bas wuxuu arkayaa tirishada oo dib ugu soo laabatay magaalada wada ordaya si uu ula kulmo. Wuxuuna ogaanayaa iyadoo nin kale habis siinayaan. Markuu arko aad ayuu niyad jabayaa. Iyada dhan wuxuu bilaabayaa inuu iska dhaafo wuxuuna bilaabayaa inuu dhiso guriga riyadiisa ahaa. Maalinkii xigay aabihiis ayaa dhimanaya. Tooraha dadka tacsiyada ay u imaanayaan way tacsiyanayaan. Kabacdi guriga riyadiisa ayuu dhistay. Sawir ayaa looga qaaday joornaalistayaal ayaa imaaday. Dadka dhan waxay u imaanayaan taajiriinta inay gurigaas ka iibsadaan, laakiin isaga wuxuu u sheegayaa inuusan gurigan iib ahayn. Maalinkii xigtay tirishada waxay isku diyaarinaysaa arooskeeda waxayna isku baroobeynaysaa taashka arooskeeda, laakiinse waxay arkaysaa sawir lama filaan ah jaraa'idka sawirkiisa soo ku dhigan guriga riyadeeda ahaa inuu dhisay. Labadooda riyadooda ahaa inuu dhisay. Waxay u imaanaysaa maalinkii dambe sheekays iyo hadal dheer. Kabacdi waxayna u soo baxaysaa gurigeeda wuu soo macsalaameynaya. Maalinkii xigay way u imaanaysaa sida la mid ah waxay bilaabayaan inay sheekaystaan waayahoodii hore iyo waxyaabahooda ay ka sheekaystaan. Wuxuu u soo wadaamiyay oo jacaylkooda uu ku soo bilowday. Aalaa iyo Nova habeenkaas hal guri ayay wada joogaan. Subaxii dambe waxaa guriga u imaanaya Tooraha gabar jeceleed ayna isla noolaayeen.
waxayna ogaanaysaa in Aala ay soo laabatay, waxayna u sheegaysaa in noloshiisa ay ka baxday ee iska ilaawi doonto noloshiisana uu ku raaxaysto. Dhanka kale waxaa arkaynaa tirishada hooyadeeda iyo iyada inay heshiiyeen ayna go'aan ku gaartay warqadihii uu soo diray muddada 1 sano inay gacanta ka saarto ayna akhristo. Atoore tirishadii way isku qaylinayaan maadaama ay u sheegtay inay leedahay nin kale ay isguursan doonaan. Asna wuu ka xanaaqay midaas wuxuuna dhahay iga soo go'is, iyadana waxay dhahaysaa ma samayn kari. Tirishadii way oynaysaa laakiin waxay ugu dambeyn go'aan ku gaaraysaa iyada iyo ninkii isguursan rabeen uuna kusoo fasaxay inay u laabato jaceylkeedii hore. Subaxii dambe wayn u imaanaysaa Atoore, sidaas ayayna iska helayaan. Ogaanayna doqda bilowga filimka iyo doqda inay yihiin Atoorena tirishadeena iyagoo duqoobeen. Tirishada waxaa ku dhacay cudur iloosho ah, wax dhan ayay ilaawday. Atooraan wuxuu ugu sheekeynaya sheekadooda, ugu dambeyn way soo xasuusanaysaa wax walbo. Waxayna ku wada noolaayeen guriga riyadooda ahaa. Habeen waa isla seexanayaan, subaxii waxaa loo soo kacay iyagoo meyd ah. Subscribe to my YouTube channel. I know you're gonna love it. So bye bye.